wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa daahfuray qorshaha istiraatiijiyadda 3 sano ee socdaalada isku dhafan kaasi oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka taliyaha ciidanka socdaalka agaasimayaasha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo shaqo-gelinta agaasimaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka madax ka socotay hay'adaha IOM GIZ iyo waliba UNHCR ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay oo ku dheeraaday muhiimadda qorshahan ee agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Xasan Aadan wasaaraddahan maanta farxad bay noo tahay inaan qabanno xafladan ku furayno qorshaha 3 sano ee socotada isku dhafan oo wax badan mas'uuliyiintii halkan iga horreeyay ay ka xuseen culayska ay leedahay in haddii la maareyn waayo xalna loo heli waayo socotada isku dhafan runtii qorshahani wuxuu soo socday muddo dhammaan institutions ay xuseeyaan aad baa looga soo tashaday waa laga soo faaqiday wixii fikir waa lagu soo faday discussion dheer dabadeed maanta waxaan u joognaa furitaankiisii qorshaha maanta u joognaa qorshaha ugu muhiimsan ee loo sameeyeyna ay tahay in lagu xakameeyo socotada isku dhafan oo dalkeenu yahay meelaha ugu badan ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka taliyaha ciidanka socdaalka agaasimaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay soo dhaweeyeen qorshahani cusub dad baxsadaha noqoto dad wax soo leeyahay noqoto dad xalanaya noqoto darooga muqaadaraad iyo wax ka shaqaysanaya noqoto dad iibinaya noqoto dad ka ganacsanaya noqoto waa issue la geliyo inta u badan ee mas'uuliyadda saarantayna waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha ما ها وحين مكان بالعافية حاول يناطري ونبقى هنا وكلمة نوع جيران سلا اسمع فيديو رجعوا يشجعن صدق نوع وميكس إنجليش كوي ما دوا يجرا وسقطنا محمود هذا الدرجة إنك هاي تريسا المقاشان يجي يجوا يلعب يجوا وتطبع كويستا waxaa la dhahdayay la socono in siyaasadii amaba istaraatiijiyadii lagu hagi lahaa xuquuqaadka iyo shaqooyinka kala duwan iyo adeegga kala duwan waxaa runtii aad ugu hadlaya dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawliga ah ee inta badan ku howlanaa diyaarinta iyo qaybgalka iyo hawshaasi meelaha noqon lahay qofka socdaalkii wuxuu raadin karaa dhaqaale wuxuu raadin karaa amni meel uu ka helo wuxuu raadin karaa inuu isagu khalbado oo uu dal kale ka soo dhibaato ka soo sameeyo amaanaya ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saleeman Warsame Guuleed ayaa si rasmi ah u daahfuray qorshahani hay'adda barakacayaasha iyo ciidanka immigration-ka oo base saldhig u ah la tacaalidda runtii socotooyinka isku dhafan socotadaasi mararka qaarkood waxay soo gudbin kartaa khasaare ayaa ka iman kara amni xumaa ka iman kara waxay soo gudbin kartaa inay la socdaan dad badan oo farsamo yaqaaniina socotaduna waa arrin caalama weeyaan caalamka oo dhan ka dhacda aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta kulankii 3 bilood aynu ku dhegeyno qorshihiisa aynu halkan maanta isugu nimaadno